Goran kusoo dhawaad aad bidhada qabla magacaaga. Niyo magacayga waa Jaamac Jaamac Aadan Cali waa magacayga la yiraahdaa oo ka soo jeeda gobolka Togdheer diyaarban adiga reer Jigjiga weydii salaamay Ma soo tahay la goorma timday saaxib niyo waxaan joogay ilaa adigu in gaafar bilood oo ka sugay burca saaxib gobolka ragga markaan maqlaa waxaan xasuusanayaa qosol gobolka qosolka iyo gobolka ragga inta waa isku darsaday marka balkishiga inta joogtay maxaad kala kulantay horta imika Jigjiga safar baan ku dhaafaa adigu badanaa ma joogo laakiin ilaa afar casho hore iyo saddex imika waan joogay magaras kulley Jigjiga waa magaalo Soomaaliyeed soo dhaweyn iyo wanaag inta waan ka arkay haddana beejkeeda xumaa ii dambaysiino aanay ii dambaysiin laakiin si waxaan bay soo dhaweysay waxaan leeyahay ku faraxsanahay magaalo Soomaaliyeed halkan joogiyo halkan waa isku mid Soomaalinimaduna wax la isugu yeey anigu imika arday harmay dhigto ayaan hay dadka dhex jooga waa Oromo kabacdi diirka uma dareemayo imika halkan isku soo biyasho wataan leeyahay Jigjigan isleeyahay imika atibadi wala yaa ku badnaa inta baartay maxaa kamid ahaa Jigjiga markaad soo gashay Jigjiga waxaan arkay wixii ugu la yaab badnaa horta awalan markii hore waxa jiirhan ku weynaaday hayo gurigeyga ma soo dhaafin burca ma soo dhaafin halkii igu sareysay aan soo gaaray waxay maartay mashare kiniisada wajaale halkaas Itoobiya ii soo joogtay baad markay Itoobiya caadi ku soo dhaadhacay habeen baan imi Jigjiga nimi markaan nimi aan maalintii dambe joognay wixii ugu horeeyay la yaabkay ugu laqaday aan arkay waxay ahayd gabadh sidii reer Yurub wax yar gaaban siiyay dalaan walu qaadan way waxa adiga aniga qudheedii baa indhaha soo socotay si uu ma riyoonaysa mise waa dhab sheekadan dabeetana markaas si waday ilaa haramayo laan jaacad ku arkay iyagu mariyay tuurta ku sitaba caadi weyn iska noqoto waa la qabsaday gabadha kulley qof markuu gurigooda ka soo dhaqaaqo marba waa aragtinimo ku bilaabmaysa marba heer bay taagsiisan tahay anigu Soomaali wax ka badan ma arag marka gurigeyga joogay kaleerkii Soomaali waa ka raacay Soomaali buu ahaa laakiin imika way isbedeleno 500 ya 5 kulo ormaama ku dhex jira adiga ay qudaas ma lahayd xagga marka la yimaado luqada ma jira eray la yaabtay marka soo gashay waxa erayada aan la yaabay markasta dhigayga ku bata waxa kamid ah inbay khoyo zaman garan waxa saarnaa nimaga ma adiga ku jeeda ka bax meesha talow Axmaariga ma jirtaa waxaad ka taqaanaa Axmaariga niyo may maadaama aan qof horade qof deegaankii ku korayna maan hayn meeshan wax ku soo dhigtayna Carabi iyo English iyo Soomaali baa adigu markaa meel aan u soo maraba nabay jirinba imikana qudheede waxaan u barto muhiimadii ma jirta salaamna iyo waxma goortii baran inta waan yaraa qaqaana isku dhaafiyaa laakiin ma luqadda wax muhiimad siinaysa marka aragtay luqadii oo sida English to kale imika dadkoodii way horumariyeen iyaguna way horumareen laakiin Oromiga doo ka duursanaya waxa marka luqadiisa bartay duursada laakiin ka wada luqadda Axmaariga may midna ma barano iskuma wanaagsanin adigu maadaama meeshaan joogno Oromo tahay kulley wax yar qasoo ka baranaysa oo waxa wax ku dalbanaysay oo population-ku ku saameynaya adu marka arday kale deegaankaaba nala joogta wixii aan u baahanaba iyagaan nusraacnaa iyaga nooga turjuma kulley laakiin Soomaalidii badneed ama Puntland ama Soomaaliya ama Somaliland ka timi way ku dhagafaareen wali ma aragtay waxa ku dhigay digiskii ka naxrato may walaw inagu dad islaamanahay aynu asfuranay 100% hableen aad u wanaagsan yihiin jaamacadda kuwa nala joogiyo kuwa halkan joogiyo kuwa wadankii joogaaba dhaqan iyo diin iyo dhaqankeena iyo diinteena way wada socdaan waana ku bogaadinay waxaan leeyahay Ilaahay noo siyaadiyo waxaanu aragnay kulley waxyaabo badan oo la yaab lana aragnay arkaysaa inay hooyadeeda wada qaawan haddaynu Soomaalinahay Ilaahay taawniga xijaabay arkaysaa laba qof oo isku hela oo midna gaal iyo midna islaam yahay haddana may diintii may saameyn ehelnimadoodii halkii ay ka sii wateen waxa wax Ilaahay lagu mahadnaqo weeyaan taana maynu arag waxaad kale arkaysaa waxa weeyaan macallimadaadii oo aan ixtiraam ku siineen inaga macallimiinta way jiraan dumar oo Soomaaliya dhiga way niqaaban yihiin way jalbi beestaan laakiin tan iyadoo wixii yar ay gaabnaa seetay goolasa macallin ma kuwa هذا واحد يلا نقدر تيجي وين أنا ولدي كريم إنه يقام
قلت قلت أعرف عنه بس حق سرنايو نيو وحنا dad yar oo iska kooban oo iyagu isfahma bulshada meesha tagaana ay dadka un ay isfahmaan dad calool furan dad iska kaftan badan gobolka qosolka gawdhe wax kala hantiya ma hayno qosolka iyo suugaantii ma lagu soo hadhay gawdhe marka aad iyo aad baan reejigana u salaamaya Soomaalida deegaankana waxaan leeyahay aad iyo aad bay wanaagsantiin ilaahay dawladnimadii ay siyaadiyo waana dad Soomaaliyeed oo markasta ehelnimaanu dareemayna markaan kaaramar dhamarnay ayaanu adimada dhulka ku yarayn laakiin intaan halka joogno kullay dima dareemin maadaama 25 arday ormaa ku dhex jirna marka mar quro la isku qolada reejigana halka hoosayna nimankaan lagu taawanin intaan meesha ka baxayno aad iyo aad baa mahadsantahay baada TV-ga iyo dhammaan cidii kale waxaan leeyahay برشلونة أنا أقدر أقول. أي مقعد